Soomaaliya waxa soo maray dhibaatooyin laxaad leh oo ay saameeyeen dagaaladii sokeeye iyo nabadgelyo la'aantii jirtay in ka badan 20 sano taas oo ay si baan u waxyeeleeyeen masiibooyin kale oo dabiici ah adeegyada asaasiga iyo fursadaha ganacsigu wali waa ay xadidan yihiin iyadoo caqabado dheeraad ah wali lagala kulmayo kobcinta dhaqaalaha maadaama ay wali maqan yihiin ama aanay xooganayn hay'adihii dawliga ahaa waxaa fursadihii adeegyada buuxiyey hay'adaha gaarka ah bulshada maxalliga iyo ururada bulshada halkaas oo ay ka soo ifbaxeen hannaan loogu adeegayo baahida asaasiga ee dadweynaha sidaas oo ay tahay meelo ka mid ah Soomaaliya waxa ka socda mashaariic horumarneed oo aan laga filan karin waddan aan wali ka soo kaban burburkii dawlad la'aanta shirkadda Nexom way ku bahoobeen ganacsato Soomaaliyeed fadhigeeduna yahay Garowe caasimadda Puntland ayaa waddanka ka hirgelinaya mashruuc tamarta dabaysha koronto lagaga dhalinayo markii ugu horeysay Soomaaliya waxaan arkay wadamo badan oo isku dayay hawada inay wax ka qabsadaan runtii dhaqaalahana xooga uga gabaday إلا الإنرجي ما أنت هذا بعد daily life كذا كله صباحا ما أنت شركة هو وين وقبل كنا ما أنت كتير life كبدك إلا صباحا يعني ولا شعور it's very energy بوا واجهه رئيسي وحنا سيجرني مطاره لو تشنا لو بكون يلحدي وحنا أقدمني هاي تنشن والدبك حوجنا 2006 mar dambe waxa laga fakiray shirkadu inay horumar samayso waxaanu markaa qaadanay inaanu solar ku daro matooradii in hadeer muddo ah waxa kambaniga u shaqeynayay saddex system oo solar iyo battery iyo matooro isugu jira kadib haddana waxa laga fakiray bal sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka powerka waxaanu qaadanay inaanu ku daro dabaysha oo koronto laga dhaliyo mashruucan ayaa qorshihiisu yahay sidii bulshadu ugu baraarugi lahayd isticmaalka tamarta kala duwan si loo gaaro horumar waana qorshe looga faa'iideysanayo tamarta dabiiciga ee dalka iyo sidii loo heli lahaa koronto qiimo jaban loona ilaaliyo deegaanka dabayl in koronto laga dhaliyo asbaabta keentay inaanu ku fikirno asaneeg ahaan caalamka hore ugu fikiray laakiin neeg ahaan inaanu ku fikirno number 1 waxa uu ah si aanu u dhinno qiimaha korontada bulshaduna isticmaalka ugu dhiirtaan ayaa number 1 waxay u tahay in aanu hindisna fikradan ummad walba oo adduunka ku nool marka ay sameynayaan power plantiga mesela koronto dhalinta markay sameynayaan waxay ka fikiraan waxa ugu jaban oo heli karaan hadda wadamada shidaalka soo saara target uma aha inay hawo ka dhaliyaan inay qorax ka dhaliyaan waa iska exceptional ma dhacay shidaalkii horqiisa haystaan inagu waxa haysanaa marka hawo ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiyay iyo qorax sababta marka loo target gareeyo waxay tahay si qiimaha dadka looga dhimo noloshuna sida hadda tahay si ka fiican ay dadku ugu dhiirtaan inay u isticmaalaan energy-ga waxaan ugu qasbanahay inaan qiimo jaban raadino qiimihii jabnaan raadintiisina waxaanu baaritaan la sameeyay kadib la ogaaday in magaaladeenu ay leedahay hawo ku fiican in korontada laga dhalin karo saas ayaa keentay in lagu dhiirto oo lacag badan la geliyo si loo sameeyo systemka sanadahan dambe dunidu waxay u guuraysaa ka faa'iideysiga tamarta dabaysha dawladda Denmark ayaa noqotay dawladdii ugu horeysay ee si weyn uga faa'iideysanaysa tamarta dabaysha Denmark ayaa aad u sii horumarisay mashruuca ka faa'iideysiga tamarta dabaysha iyo cadceedda oo koronto laga dhalinayo wixii ka dambeeyay sanadii 2016 42% korontada laga isticmaalo dalkaas ayaa hadda ah korontada laga dhaliyay tamarta dabaysha iyo cadceedda waxayna Denmark ku kharash garaysay malaayiin dollar
waxaana maalgashtay shirkado iyo dawladda sida aan ka soo xignay Søren Hermansen oo ah maamulaha shirkadda Samsung Energy oo ah shirkadda waddankaasi ka hirgelisay koronto ka dhalinta tamarta dabaysha ee dalka Denmark. Soomaaliya waqtigan kama jirto fursadaha Denmark ku suura galiyay mashruucaas, waxaase muhiim ah in la garab istaago ciddii isu taagtay hirgelinteeda. Ka hirgelinta mashruucan tamarta dabaysha waddanka Soomaaliya oo muddo badan burbur ku jiray waa mid aad u adag marka loo fiirsho caqabadaha badan ee soo wajahaya shirkad gaar loo leeyahay oo aanay jirin dawlad garab siinaysa. Caqabadaha hor yaallana ay ka mid yihiin shirkadaha sameeya qalabka tamarta oo aan oggolaanaynin inay la macaamilaan ama wax ka iibiyaan shirkad fadhigeedu yahay Soomaaliya. caqabadaha runtii ganacsatada Soomaaliya haysta waxaa ka mid ah in haddii xataa ay rabaan inay ku dhiiradaan inay mashaariic waaweyn oo xoog la waddanka ay ka sameeyaan oo ogtihiinoo qalab bay u baahan yihiin soo gataan, waxay u baahan yihiin inay dadkii tiknoolajiyadda u istaari lahaa ama u tababari lahaa shaqaalahooda localka ahaa oo Soomaalida ahaa inay la yimaadaan. caalamkuna maanta waa ogtihiinoo Soomaaliya waxay ka haystaan meel aan bini aadan ku noolaan karin, marka caqabado badan oo waxaa jira ka haysta ganacsatada inay waayaan cid ay maalgelinta ay samayn lahaayeen dadkii hay'ad badeecada inay waddankii keenaan oo marka ay kala shaqeeyaan inay la hirgeliyaan mashaariicdaasi. Nidaamka bangi lacag bixinta oo aad u adag maadaama Soomaaliya aanay ka jirin bangi caalami oo la aqoonsan yahay, kharashka mashruucan ku baxay oo aad u tiro badan. taasi waxay muujinaysaa inay culusyo badan ay dhabarka u dhigeen shirkadda korontada ee Nexom. waxaan soo martay anoo lacagteedii gaashka haysana in la yiraahdo xagee u socotaan, xagee u rabtaan Soomaaliya, service kama bixin karno. kuwa ugu sahlan waxay yees aan wax ka gadanay financial systemka yaa garanti gadanaya say wax noo aaminaysa say ku aaminayna. markaan wadamo badan hadda meel ay nala tagtay, markii ugu dambeysay waxaanu helnay company expertise ah. company expertise ka waxaanu ka gadnay in uu feasibility study noo sameeyo. companygaas markii uu barnaamijkii soo barasantay dhigay baa waxaanu sheegnay requirement-kii, waxaanu geynay profile-kii waxaanu hayno oo rafli ahaa capacity-ga dadka inta ku nool magaalada in deeply waxaanu sharaxnay exactly facts waxa ah. taa waxay kaliftay inuu diyaariyo proposal dhammaystiran oo qeexaya xataa dhaqaale ahaan intuu isku celin karo haddii miisaaniyadda intaana la geliyo baahidaana inay jirto. isla iyagii baa waxaan ku niri bid loo sameeyo. bidka ay sameeyaan wuxuu noo soo jiiday methodology-gii saxda ahaa ee dadkani af yaqaaneenna uu ku dhaqmayay inay design-kii iyo proposal-kii oo dhammaystiran sameeyaan. daa ku yidhaahdo garowe oo markaas laga yaabo xilligaas inay baratisku ay marayeen levelka ugu sarreeya dhowr sano ka hor weeye. Puntland oo dhan 18 waddan baa soo abaalgareeyay inay dhahaan project-ga fulinayna. markii horena ilbaabka garaacday qofka markaa u tagto kula maxalin maxaa dhacay wuxuu aqoonteedii markii la geliyo dadkii inay ka faa'iidaystaan doonaya waa u sahlanta. ugu dambeyntii taasi waxay noo sahashay in aanu soo fadhiisano dadkii exactly waxaan ka shaqaynayay. intaa kadib waxaa dhacday markay timid in saleski dhaco oo wax la kala weedaarsado sidii wax loo kala weedaarsan lahaa in financialki loo baahday. waxaan ku xiray inaan la nimaadno inta tigaa jiritaankiisa noo soo cadeelano ma jira ahaa adaa socdaan ku aragnaa laakiin noo soo cadee inaan warqad ka keeno muxuu ahaa jamarka masigeeni inaan heer federaal ka keeno inaan tamartii ka keeno in documentiska soo cadaan inaan waa kana waa jirnaa halkaasana. saas ayaa waxaa suurtooday in caalamku indhihiisa u soo jeestaan. markii loo yimid in la dhaho waxa la kala qaato iyana waxay ahayd wixii kale ugu daraa. waxaa dhacay dadku waxay yaqaaniin down payment samee marka koowaad heshiiska saxiixaysid, marka waxaa iga qaadatid qaybta kale iisoo tijaabi markaan ku tijaabiyo, marka ugu dambaysa oo aan waxaaga kuu soo wada dirana lacagtaydii wada sii. wax ilaalin karayna ma jirin, wax ilaalin karay ma jirin. haddaan xaqiiqda kuu sheego trustee each other baa ugu weyn mashruucan inuu fulo.
mashruucan hadda fulay oo milyaniski lacagta ay ku baxday markay arkeen hawi maaragtay sidaan ugu taaganahay inaan waxaan fulino ay arkeen documentationkii markii ugu dambeysay ay gaadhay in la isku aamino adaanu ku aaminayna ma hayno letter of credit responsibility ka dambeeya ma hayno sala aligeed asfaraas aan aragno talaabooyinka qaadaysa inay sidii ugu saxsanay tahay waxaan diyaar u nahay inaan kula macaamilno mashruucan dabeysha magaalada Garowe oo ay fulinayso shirkadda Nexom oo aad wada taqaanaan shirkadda korontada magaalada siiso wuxuu ka kooban yahay wajigiisa koowaad 3 turbine oo midkiiba quwadiisa ay tahay 250 kilowatt dhirka turbine walbana waa 32 mitir dabeysha sida ogtihiin macnaha xawligeedu kala gedisan yahay macnaha xawligeeda daanka waxa loo isticmaalaa macnaha turbine ku shaqeeya waxyada mitir per second dabeysha meesha hadba siday tahay markay tahay 3 kilowatt 3 mitir per second ayuu wuxuu soo saareeyaa quwad u dhigantay ilaa 40 kilowatt kadib wuxuu soconayaa kor ilaa laga gaaro 10 mitir oo ah qaybta ugu weyn macnaha waxa ugu weyn ee mashiinku soo saaray oo macnaha 250 kilowatt ah marka la dooranayo sayidka ku haboon macnaha sayidku waa inuu waxyaalo qaarkood buuxiya waa inuu tahay meel ka sareysa magaalada macnaha dabeysha ugu soo dhacayso macnaha dabeysha wax celinay inay jirin meel xoga waa inay ahaataa as security magaalada xogaa ka baxsan kana dheereen isla markaasna ay tahay meel waxay soo saarto magaalada si sahal lagu gaarsiin karo macnaha anagu waxaas dhan wada fiirinayno saas ayaa loo xushay meeshan hadda shirkadda Nexom ayaa noqonaysa shirkaddii ugu horeysay mashruucan tamarta dabaysha looga faa'iideysanaya ka hirgelinaysa Soomaaliya dhammaadka mashruucan ayaa lagu taamaya in bulshadu hesho koronto raqiis ah oo dhammaanba laga wada faa'iideysto Soomaaliya oo idil wadanka waxaa laga yaabaa korontada qaaliga in waxyaabo badan ay u suuroobi waayeen dadka inay keensadaan dad badan oo Soomaali oo ganacsato ahaa ayaa waxay ku haminayeen inay wadanka warshado ka sameystaan cilada u badan oo hortaagan waxay ahayd maxaa energy u noqonaya shidaalkii waa qaali hadii iyagu ay matooro keensan lahaayeen haday isticmaal lahaayeen shirkadaha wadanka ka jirana waxa qaali ku ah korontadii qaali ku ah marka waxay keentay in dib u dhac badan dhinaca uu ka yimaado sabab la xiriira korontada oo qaali ah thanks to my customer aad bay u mahadsan yihiin macaamiisheedu maxaa dhacay qiimuhu ama qaali ha noqdo ama yuu noqon haddaysan iyaguna garab taagnayn waxaan meel kale kama keenin dowlad naguma caawin fanomaanaan helin prosperity meel kale aan ka keenay maaha dowlado kale oo nagu taageeray maaha shilimaadka culayskiisa la dareemayo oo aan ururinay shiilnay la tuujiyey ayaanu dib ugu celinay bulshadeeduna waa inay aragtaa waxaan iskama imaan shilinkoodii baan dib ugu celinayaa dagaalkan ku jirana wuxuu yahay inaan qiimaha ka dhimo that's why marka sababta aanu leeyahay waa mahadsan yihiin macaamiisheedu waataa waxa koowaad aan ku tirsanaa macaamiisha iyaga inaan raali geliyo waa waxa koowaad maalin walba waa la canaantaa waxaan ku idhaahdaa ma tallaabsan karo hore uma socon karo mana tallaabsan karo haddii aanan taageereediina helin briceka korontada aan hadda u soconnaa himilada iyadu tahay waxa waaye waddamo jira oo dowlad leh inaan ka hoosayno this is our objective waddamo jira oo dowlad leh inaan ka hoos marno qiimo ahaan inaan ka hoos marno waa rabnaana waliba waxaan u soconnaa solarka iyo dabaysha markaan aragno kan positive ku sii habboon inaan tarmino adda indigana waxaan rabaa dreamkayguna yahay qofka Garowe jooga leerkaan inuu shidan yahay in kale hadda uu ka fikira laakiin mustaqbalka marba in laga fikiro inuu shidan yahay iyo in kale that means waa inuu price ku gaaraa meeluusan qofku uusan ka malaynin waxaan ku dadaalnaa inay korontadu 24 saac shaqeyso marka qaybtooda waxaan ilaadaa waxa iga fiicnaan lahayd inaan wax kale ka bixin mushtaro maxaa heereegay saaran minutes markay danto dadaalka la galaya effortiga la galaya waan isleenahay ama qof operation ku jiro la qalay ama maaragtay qof maaragtay wax kale ka halaabaya ama daawo halaabaysa ama imtixaan la fadhiyo fil garobaya ama meetino international macna la lagu jiro leeyahay heereegana saaran nama saarnaan haddana waxa laga yaabaa inuu nooga faa'iido badnaan lahaa maanta hadday Nexom
nexom ay damceen inay iyagu qabtaan wixii wadamadii westernka oo ka dhaqaalo badnaa ay ka gaabsadeen waa wax aad iyo aad cajiib u ah waana ku mahadinayaa runtii ilaahayna ha la garab galaan leeyahay qiimaha qaaliga ka cabanaysaan waxa la aliyo wixii loo soo maray oo horumar lagu gaaray waxaan rabnaa inaan bulshada u boosti garayno inaan u gudbino mar hore Kismaayo already waa la sadab gareeyay oo waxay joogtaa stage ah in generator hada wax looga shido solarna waa socdaa inaan ku shido kabacdina hawadu hadii staadiga marka la sameeyay ay munaasab ku tahay waa laga dhigay sidoo kale halkaayo midda laga sameeyay aragti iyo fikrad baanu ku lahayn inaanu maaragtay la fadhiisino wixii aan dhahno muqdisho aanu hadda ka wadnaa oo energy ka wadnaa boosaasan baarta energy ka nahay midda ka jirta oo wadnaa marka aanu barnaamijka halkan wadno dhameystirnana waxaan rabnaa degmo walba oo gobolka Nugaal ku taala inaan mustaqbalka iraado qof wadankan degani mugdi ma seexanayo hadii ilaahay idmo oo aanu sadab garayno maadaama aanu know-how-gii helnay wax ku habboon efficiency-geedii iyo dhaqaalaheedii tuulo kasta dadka jooga inay u iftiintaan rabnaa mashruuca hadda gacanta lagu hayo oo dabaysha waxaan rajaynaynaa bisha 16 haddii ilaahay idmo inaanu ku darno systemka dabdhalinta ee magaalada haddii ilaahay